السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين مرو جوكتان وحان ليهي رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. توانكي قدام بيت ايانو قل رمنا ان شاء الله حدو الهي دو يرهدو ان برنامجك ان هلكا ان مانتا ان وغهر ليو وحوي ان waxaan soo galiyay qaybtii u horeysay oo aan kaga hadlayay gastriga. marka waxa aan rabaa in aan cuntooyinka la qaadanayo iyo waxyaalaha aan u fiicnayn inuu qofka gastriga qaba ama qofka sooman waxyaalaha uu maaragtay uu qaadan karin iyo maaragtay cuntooyinka oo saliid leh. haddana ku bilaawno xagga Ramadaanka ah qaabka loo afuro qof waliba ama gastriga ha ku hayo ama yuusan gastric ku haynin. dadkana badanaa Soomaalideena waxa aan aad uga cabanaa afurka ayaa dadka badanaa waxay yiraahdaan cuntooyinka aan cuno waan ku dhaca qurun iyo calool ayaa ku dhaca. marka waxyaalaha keenaya oo dhibka u keenaya waxa waaye marka horeyso marka la adimo oo maaragtay marka aad sooman tahay 3 xabo timira bakeeri yiriso biyo kadib salaadaada soo tuko soo noqo cunto oo maaragtay oo ii sheeg waxa aad cuntaa oo aan lahayn saliid. maxaa kamid ah cuntooyinka saliidda aan lahayn? waxaa kamid ah cuntooyinka saliidda aan lahayn sida boorashka oo kaleeto. maxaan ku raada qofka hadii uu maaragtay boorashka hadii uu cuno way ka wanaagsan tahay adiga oo cunay saliid iyo bur iyo waxyaalo badan oo saliid leedahay inaad cuntid. marka intaad aad cuntid ha isku dayin in aad cuntadii aad cuntay marka aad furto TV inta aad fariisato ama aad seexato, maxaa yeelay dheeshiidkaagii ayay dhibaatooyin u keenaysaa. dadkeena badanaa Soomaalideena waxaan sameeynaa intaan afurno ayaan waxaan sameeynaa TV-ga la fadhiisanayaa ka bacdi ii sheeg dheeshiidkaagii ma shaqeynaa. waa qaarna waxay sameynayaan way seexanayaan. marka waxaa isku daydaa in aad u baxdo banaanka ama aad soo lugayso ilaa iyo 15 ama 30 minutes 30 daqiiqo ama 40 ama hal saac inaad soo lugayso oo si ay maaragtay cuntooyinka aad soo cuntay maaragtay dheeshiidkaaga mataqaanaa ula shaqeyso. waxyaalo badan oo waxaa jira oo dadka mataqaanaa intay sameeyaan intay afuraan ay TV-ga hore ka fiirsadaan, taasna waa dhibay keenaysaa dheeshiidkaaga ma fiicna. numberka saddexaad waxa waaye dadka waxaa jiro ku dhahayaan aniga xalay ma suxuuran. dadka aniga suxuurta ma ihi, dadka cuntada ku suxuurta ma ihi. waxay sameynayaan hal mar ay waxay sameynayaan afurkii iyo cashadii iyo suxuurtii ay hal mar la kooda cunayaan. marka haddii aad wax taas samayso waxa ku fiican inaa marka aad afurtid inaa waqti u kala dhaxaysa kala dhaxgelisaa wanaagsan. haddaa afurto kaleeto cashadaada iyo suxuurtaada kala dheeray. suxuur la'aanna ha seexan, wax yar cun oo maaragtay adiga aan ku dhibayn. laakiin hadaa ku suxuurato bariis iyo baasto iyo waxyaalaha dufan hadaa ku suxuurato hadhow daca qurun baa kugu dhacaya. waa soo daacaysaa wax saliid soo daacaysaa kuma wanaagsan. waxa ku wanaagsan wax oo sareen ama qamadi inuu qofka mataqaanaa ku suxuurto si maaragtay caloosha dheeshiidkaagii oo marka ay seexatinda dheeshiidkaagana mataqaanaa uu si fiican u noqdo. waxyaalaha laga qaado waa gastriga waay. waxyaalaha laga qaado gastriga waay. numberka afraad waxa waaye cuntada marka aad cunaysiin ama cunaysid calaanji si fiican sida dheeshiidka oo maaragtay si ay mataqaanaa si fiican oo dheeshiidka ay u shiido. cuntada calaaji, cuntada cun. dad baa waxay sameeyaan number 5 dad baa waxay sameeyaan markay afurayaan ama markay qadeynayaan cuntay cunayaan biyihii ay hore ka cabayaan. cuntadii waxay isku dhex wadayaan biyihii. marka waxa waaye waa in aad cuntada si nidaam si tartiib ah u cuntid oo sidii ilkahaaga u calaanjiyaan kadib aad u liqdo. waxay sameynayaan cuntadii la cunayaa
biyo laga daba geenayo taasna dheeshiidkaaga uma wanaagsana numberka 6 isku day in aad mar walba ku dadaasho inaad sameyso jimicsi inaad banaanka u baxdo inaad gym aado haddii aad awoodin waa inaad mataqaanaa guriga ku dhex samayso wax la yiraahdo jimicsi ku dhex samayso ani ahaantayda waxa aan ku afuraa snapchat-kaygan soo geliyaa snapchat-kayga waa juba dhibic yare kana aan ku sheegay waa juba dhibic yare waxyaalahan ku afuro waa soo geliyaa sometimes ani waxaan ku afuraa boorash sida loo yaqaano ama mushaari 3 xabo timira biyo soo qandaca kadib salaadan tukada kadib waxaan sameeyaa ishek 2-3-4 hours ayaa waxaan u dhaxaysiiyaa cashada cuni lahaa مثلا waxaan sameeyaa 3 xabo timir marka cuno iyo biyaan cabo oo soo tukada oo soo noqda waxaan sameeyaa kadibna boorashka cunaa boorashka marka waxaan ku darsadaa wax yariiso maaragtay hal qaado waxaan ku daraa malab ah hal qaado maaragtay isheg xulbad aan ku daraa xulbada aad bay u wanaagsan tahay laakiin Soomaalidu waxa aaminsanaa inay kaasoo urayso wax kaasoo uraya waxa la yiraahdaa sida loo kala nadaafad badan loo kala fiicanya marka isku day inaad mataqaana xulbadan ku darsato kadib ayaa waxaan sameeyaa 3 saac ka bacdi ayaa waxaan sameeyaa aan casheeyaa ha isku dayin numberka 7 marka aad adiga afurto ama marka aad cunto hore ha ka cunin cuntooyinka fruitka ah sida mooska babayga cambaha canabka adigu afuray hore ha ka cunin marka afurto aad soo lugayso oo aad saaca ka bacdi soo noqotid ayaad cuni kartaa baaquli yariiso mataqaanaa oo ku jiro moos iyo babayo ama fruit iyo yani ku jirto maxaa ku dhahaa fawaakih waxa waaye waa fruitka fant oo ku jirtana cunto dad waxay isku sameeyaan way afurayaan inta ka qaadanayaan bariis inta ka qaadanayaan maxaa ku dhahaa moos inta ka qaadanayaan dheeshiidkaaga muu fiican marka mar walba waxa wanaagsan numberka 9 Soomaali hadaan anaga miskiin kan waxa yiraahdaa saliidda waxa waaye way dhib badan tahay burka subaga bijiyaha basbaaska malawaxa beerka iyo waxyaalaha saliidda lagu shiishiro oo dhan dadka gastriga hay uma wanaagsana waxa isku daydaa in aad intaad ka fogaato haddii xataa uu gastrig uu ku hayn xataa waxa waaye dheeshiidkaaga uma fiicno qof soomanaa 12 saacadood ama ka badan soomanaa haddii uu ku afuro cunto oo saliid leh halkaas laga dhigayaa marka aniga gas badan ayaa saaxiib la ahay oo gastrigan sheegan saaxiib la ahay xamiitina saaxiibaan laga qalay dad badan waxa jiro ila soo xiriireen oo ayagana dhibkaas ay haysta ilaahay maaragtay ummadda ha caafiyo ilaahay ummadda mar xanuunka qaado intii aan waxba haysan waa bir Ramadaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waalidiinteena maaragtay u naxariisto intii dhimatay intii nool ummad Soomaaliyeed ilaahay qulubta Allah isku furo ilaaha ka qabto ummadda wixii dhibaaya qof walba wuxuu haminayo taminayo in ilaahay maaragtay ilaahay uu dhameystiro wuxuu qofku walba wuxuu jecel yahay waxaan ilaahay marka sidaas nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh